asxaabta like share subscribe comment inoogu soo bixiya insha Allah. Thank you for your watching. aad u mahadsantihiin asxaabay, aad idin jecelnahay. la socda video walbo soo dhigno gambaleelka furta insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabta soo dhawaada meel walba adduunyada ka joogtaan. channelka naga daawanaysaa Balqiis Beauty Lifestyle. asxaabay maanta waxaan sameysanaynaa buskud oo keek qurux badan aan ka sameynayo insha Allah. hadaa haysatid oven oo ku sameysan kartaa, hadaadan haysanin oven xataa waa isticmaali kartaa. dabka caadi u saareysaa. marka insha Allah asxaabay saa u sameysanayo ila socda. biskudkana waxa laga soo saaraya keek oo yar oo qurux badan insha Allah. asxaabay socda laba xabo biskud oo Oreo inta ku haystaa. biskudka haysatida ku sameysan kartaa haduu Ilaahay idmo insha Allah. marka saa isugu dardarayo ila socda asxaabta. intana waxa ku haystaa caanahan full cream ka saliida inta igu jirto iyo baking. intana waxa ku haystaa birtan xanshadan midho dhex gelinaya birta ku duwi lahaay waa insha Allah. iyo waxaan haystaa qalaadadan biskudka insha Allah soo furaya, qalaadada ku soo shubaya insha Allah. waa shiidi doonaa Ilaahay idmo soo jaraya biskudka insha Allah. waa ka saasay biskudka waa furay, qalaadada ku shubaya ma jijibinayo sidiisa ugu shubaya. hadii caanaha lagu shubo asaab iska jilcayo biskudka isku iska jilicsan yahay. marka insha Allah asxaabay alaab yar casri yar oo fudud waa ma sha Allah. qofka u keentidna ku mashquulaya biskud ma loo maleeyo ya. inta keeg iyo qashin banaanka aad ka soo gadi lahayd gurigaaga adii waxa guriga ku yaal isku dardarso insha Allah. asxaabta alaabtan insha Allah marka aragtaan waa ka heli doontaan. soo tijaabiya ma sha Allah. caruurtan aad u jeceliin ma sha Allah. biskud aad u macaan badan biskudkan ma sha Allah aad u jecelahay. laakiin inta badan ma sameeyo, marmar dhif u sameeyaa ileen waxa waaye faadkiisa ziyaada soo biskud aad borotiin badan hadana caano lagu sii darayaa, kareem lagu sii shubayaa. marka marmar dhif bishiyalko mar la saaga sameeyaa. ciyaalka inta badan ma wala siiyaba, laakiin ciyaalka caatada ma sha Allah aad ugu fiican yahay in loo sameeyo. way ku kobcayaan inaba caadi ma ahan. inta hadda bakinkiya ku soo daraya biskudka waa ku soo shubay labada baako caanaha haafyar ku shubay koob ma ku shubin sorry. laakiin waa u jeedin wax badan ma adii wax qoynaya camal bisaa loo baahan yahay. caano badan inaa ku shida caanaha ku badisid keega wuu ka jilcaya. marka caano wax yar ku shubaysa koob haafkiisa insha Allah. video kala soo sameynaya oo biskudka sida keega loogu sameeyo oo biskudka la isticmaali doono insha Allah. kaasa insha Allah si fiican idin tusaya. hadeertan biicani xaga isaaga aadiyay ma soo cabirin. marka wax walbana cabir ku fiican yihiin. qofkaan ka seenin haduu cabir la'aan isticmaalo wixii way ka halaawaan, laakiin cabirka duu heesto cabirku tixraacaya. marka wax walbo cabirka aad u fiican yahay. marka insha Allah video damba insha Allah soo cabiraya inta caanaha ku shubayo. soo hadda laakiin qiyaas adi 8 qaada camal qaada oo storon 8 camal oo caano waaye. caano tiro badan ma ahan. marka insha Allah asxaabay biskudka uu adag yahay xogaa soo labaya waa shidaaya insha Allah. si fiican una u shiidmo oo waxay dhan ee dagaana la rabaa oo daqiiq fiican uu noqdo. u shiid ma adii 5 daqiiqo camal shiidaysa ama 4 daqiiqo kadib wixiisa ku shubeysaa. ma dhib badno aad u fudud yahay biskudkan ma dhib badno asxaabay. marka insha Allah soo tijaabiya asxaabta biskudka ma sha Allah inaba caadi ma ahan macaantiisa quruxdiisa. marka miiska saartid waa lagu mashquulaya biskud inuu yahay waxan waxa laga soo sameeyay isdheesa wax soft oo ma sha Allah waa aad u qurux badan marka insha Allah ba ka heli doontiin asxaabta. qofka soo tijaabiya ka helaya insha Allah. soo tijaabiya biskudkan caadi ma ahan asxaabay. waa ka saaduu isoo shiidmay sidan si fiican u isku dhaxgalay. hadda waxaan soo qaadanaya bahasha ku shubi lahaayay. hadda bahashan aadan haysanin ama aadan rabin biskudkan kor iyo hoos inuu gaduud ka noqdo masti ma ahan. ileen biskud diyaarsan waaye. waxa muhiimada ee tahay inuu xoogaa dry noqdo waaye ama uu qalalo. soo waxaa sameyn kartaa digsi yar ama saliid yariis iyo bur marsanaysaa. kadib waa ku shubaysaa dabka u gaabinaysaa
qasa insha Allah next time dabka ku soo dubaya insha Allah asxaabta gambaleelka furta video walba aad soo gelisa oo la socotaan insha Allah tookada dambe dabka ku dubi doonaa hadda ofinka gelinaya digsi muxuun maadaama oo baashaan ku shubayo ofinka gelinaya insha Allah video dambe laakiin aan dabka ku sameynaa ugu sameynaa idin tusaa dabka loo gaabinaya kor kuleel ma u baahnabo adi 10 daqiiqo wuxuu noqonayaa dry uu noqonayaa ama qaleel kadib diyaar waaye hadduu xoogaa ku qabo kareemyaashaada iyo waxaaga marmarsanaysa hadaarita xataa sidiisa ku isticmaali kartaa kareem xataa masti ma ahan laakiin waxa idaaritid inaad qurxisid waxa waa xoogaa inaa oo decoration yar u sameysid oo kareem iyo waxa ku shubto muhiim waaye hadda bacdana hoos u dhigayo ujeedin bacdan ujeeda xoogaa waa soo weyneeyay geesaskan isaan ugu laalaaban tahay dhow bahash waxay igu soo baxaysaa si sak inaan ku sameeyo camal geesaha ay ka jarjaranta camal ay ku soo baxaysaa si qurux badan waa ay noqonaysaa insha Allah asxaabta hadda keeg weyn aarabtid inaad ka sameysid wax weyn ma ahan biskuitka meesha hadda 2 ka dhigay 4 ka dhiganaysaa ma fahamteen ya ani hadda keeg weyn ma rabo mid iska qiyaas ah sameynaya oo qiyaas yiriis uu noqo u baaya hadda kan weyn ma ahan marka daaratid mid fuul inuu ku noqdo biskuitka badsanaysaa bis wax kale oo lagu darayo malahan mid insha Allah asna soo gelinaya oo soo biskuitkan laga sameeyay oo kun iyo waxyaalo kale lagu darayo nagu jira insha Allah asxaabi hadda ofinka gelinaya kadib soo noogu soo baxo waa arkeena 10 daqiiqo aan ku heenayna ofinka ila socda asxaabi waa kan biskuitkeeni waa diyaar saan quruxda badan ayuu ku soo baxay keegeeni saan quruxda badan ayuu ku soo baxay dhexdiisa fiirinayna waa qaleel qoyaan an malahan sidoo soft u yaag si daran wallahi ma sha Allah biskuitkan Oreo madow way laakiin madowgiisa xarar ma aan aad u macaan badan yahay ma sha Allah dukaan walban waa laga helayaa ama any biscuit hada dadka Soomaali jooga biscuit Abu Walad xataa waa laga sameeysan karaa ma dhib badna alaabtan fahamteen biscuitka qalaadada ku shubay wax yariis bakin iyo aniisa dhac ku siinaysa ma jeedaa baasha xaanshadii hada hoos ka soo dhigo hoos bis ay qaban lahayd hada maadaama ageesaa soo gaarsiisan quruxda badan oo ii noqday marka insha Allah asxaabay saxanka saaray si tartiib soofti waay si tartiib ina u saartid waay saxanka xaanshada ma qabsan oo jeedin maahno la laabka meesha ka soo baxay amal saaweel oo jajak in lagu shubay amal marka insha Allah asxaabay saan u qurux badan yahay u jeedin si tartiib u dhigaysaa uu jilcaan yahay ileen si tartiib u jeedin maahno asxaabta xaanshada si fiican xaanshada saliid ma marin hoos bahash bisa saliid mariyo u jeedin ileen biskuitka asbax walba way ku jiraan oo wax diyaarsan waay maahno ya marka insha Allah asxaabay waa ka saas u qurux badan yahay marka oo qof ageysiso lagu mashquulayo sida qofkaan inta waxaan maxay duushan san soft bur noocee lagu daraa la fahamteen ma sha Allah aad u qurux badan tahay kareemkiya ku shubay insha Allah asxaabta la socda kareemkan uu ii diyaarsanaayay waxyaalo kale sameysanayo igaaga haray filinjeerka uu igu jiray ma badna wax yar waay asile korka marsar waa ma fahamteen kasa whip cream waay kan whip cream waay softin waaye markii oo la adkeena markii toorta amal waxaas ka sameynaysto adkeena laakiin hada inuu qoyaankiis wax dhan ku gaar rabtaa marka qasidid soft ya laga dhigtaa hada saas uu u jilcan yahay meel kasta uu gaara asaawada dareeraayaba laakiin markuu adeeg yahay xataa markuu saan yahay hadii filinjeerka agilisid oo saacado badan uu ku jiro xogaa uu yara adkaanaya marka insha Allah asxaabta saan la marmarinaysaa ma wadna alaabtan easy way ma sha Allah aadna u qurux badan tahay waa u jeedin insha Allah hada biscuit yar araba inaan kor ugu soo shubay biscuitkii oo hada oo ka sameeyay wax yar soo jijibinaya waa qurxinaa kor ugu soo shuba insha Allah soo baxo waa arkaysiin asxaabta ila socda keek fudud way ma sha Allah ukun soo qaad bur hol dheer dhan ma jirto easy waa alaabtan ya 5 minutes Allah ka soo tuur martida iyadoo ku fadhiis sheex inta ku karaay boobsiin kartaa ya marka insha Allah ilaahay carlada nabad ha noogu dhigo caafimaad ilaahay hana siiyo ya cudurka ilaahay naga dul qaado caafimaad ilaahay nagu siiyo anagan ilaahay caafimaad ku cunno ilaahay hana siiyo ma sha Allah waa kasa saan u qurux badan yahay insha Allah asxaabay dhaxdan waa ka jaraya waa arkaysiin dhaxdiisa soo noqday ma qoyan yahay
maqalalan yahay insha Allah markaa jara arkaysiin ay easy maan asxaabta fudayd macaan qurux ma sha Allah mindida u soo qaad mindida ciyaal meeshan safay ugu jiraan dhaweyno ay soo qabo bahash soo qabo marka ma sha Allah aad u macamday soofti way soofti si tartiib in loo jaro waaye kasasle u soo qaadaya saxana dhac ku siinaya ma sha Allah soo ku soo baxay waa arkaysiinba inaba caadi ma ahan alaabtan isku sheega ku dhahay isku sheegay dhac soo si asxaabta soo tuura la soo tijaabiyo ma sha Allah hada cream kan haysanin hatta dhib ma lahan sheeg caanaha macaanka gasac ku jira isticmaali kartaa oo creamka amal akor ugu shubanaysaa ma sha Allah kadib buskudkana jijibinay kora ugu shubay adaaratid caanahaas xogaay chocolate ku qasaysaa kalarka loo ku noqonaya ma sha Allah kora ugu shubanaysaa ayadana aad u fiican tahay oo qurux badan tahay ma sha Allah asxaabay saanu keegeen ku soo baxay quruxda badan keegeen easy ahay fudaydka ma sha Allah ya maanta keegi ma karay fiigri iyo cajiin garaac waxaas dhan had goolkaas dhan ma wali ugu jira alaabtan fudaydka laga soo tuuranaya ya waxyar bakin ku darso alaabta dhacdhac diyaar waaye ujeedin maahan asxaabta soo u qurux badan yahay ma laga sheekeyn karaba wax laga qaban karo ma lahan alaabtan ma sha Allah ya wax laga qaban karo ma lahanba marka asxaabta insha Allah qari caafimaad idin rajeynaya videoga xigo hadaan ugu cusubtahay subscribe like share comment hada hore noo la joogtina like iyo share noo saar commentiina quruxda badan aad idinka mahad celinayna dhiirigelintiina ma sha Allah time kan gelisaan daawashada wax dhan oo idinka mahad celinayna asxaabta soo dhawaad marba adduunada ka joogtaan assalamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh